بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد دروستيني waxaan ku dhex jirnay tafsiirka ahayd juz amma ramadaanka aan ugu talagalay darsigeenani waa kii 11aad هنا كبلابنا يا سورة القدر وحين قادم دونا إن شاء الله تعالى أفر سورة القدر هي سورة البينة هي سورة الزلزلة هي عاديات أفرتها إن شاء الله تعالى يا قادم سورة القدر وحلو بدن هي inay soo degtay marxaladii dambe ee nabiga hijradiisa ka dambeysay marxaladii Madiina inay soo degtaa loo badan yahay qolyale markay ku soo degtayna waa jirtay marxaladii markay soo degtay qolyale waa jiraan culimada waxay ka hadlaysaa suuradda dhamaanteed hal habeen oo qiimo badan oo Ilaahay ummadda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ugu deeqay habeenkaas iyo fadligiisa ayay ka hadlaysaa iyo jawaanibta fadligiisa habeenkaas waa habeenka laylatul qadriga Allah tabaaraka wa taala wuxuu yiri inna anagu anzalnaahu quraanki baan soo dejinay fi laylatil qadri sharafka habeenkiisa qadrigu ama waa qadarida iyo qorsheynta ama sharaf waay habeenkii sharafta ama habeenkii qorsheynta iyo qoondeynta habeenkeedan soo dejinay wama adraaka maxaa ku ogeysiyay ma maxay bay tahay laylatul qadri maxay tahay yani ma ogid waay fadligeeda iyo qiimaheeda waxba ka maqan laylatul qadri لي هبين كاسي خير ومتك خير بدن من 1000 شهر كمبلوت تنزل وحاسود دقيسة الملائكة ملائكة باسود دقيسة والروح يا ملك الجبريل فيها هبين كالحديث بإذن ربهم رب قد إذن كيسة سببتي سيكسود دقيا من كل أمر أرن كستدرتي بين usoo dagayaan ama arin kasta la soo dagayaan salaamun nabadgeliyo way hiya iyadu oo habeenkii ah hatta matla'il fajr ila fajrka dhalashadiisa laga gaaro soo bixida ama dhalashada fajrka subaxa dhalashadiisa ila laga gaaro Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaan soo dejinay quraanka habeenka laylatul qadriga quraanka sida loo ogsoon yahay 23 sano ayuu in yar nabiga ugu soo degayay sallallahu alayhi wasallam qayb baa loo keenayay marka habeenkaas la soo dejiyay maxaa laga wadaa waxay leeyihiin mufassiriinta qaar kamida sida ibn Abbas iyo mufassiriin kale badan ardadiisiya iyo qeyrkoodba waxay leeyihiin laylatul qadri baa la soo dejiyay waxa laga wadaa samadan soke baytul izza meel yiraahdo samadan soka ayaa habeenkaasi quraanka la keenay isagoo wada socda oo iswata kadibna 23 sano meeshaas quraanka qayb looga keenay oo malakul jibriil uu ka keenay marka waxa laga wadaa habeenka laylatul qadrigan soo dejinay quraankii oo wada socda ayaa samada soke la keenay habeenka 23 sanana samada soko qayb uga iimaanayo looga keenayay sidaasi waa Abdullah ibn Abbas iyo mufassiriin kale say marayaan laylatul qadri baan soo dejinay qolyo kale waxa laga wadaa bilaabishadii quraanku nabiga ku bilowday sallallahu alayhi wasallam ayaa laga wadaa طيب oo habeenku nabiga ku bilowday waxyigu markuu ku bilowday baa laylatul qadri ahayd sidaana waa laga wada qola oranaya طيب
habeenkaasi marka waa habeen ilaahay tabaaraka wa tacaala uu hadalkiisa quraanka kariimka u doortay inuu soo dejiyo marka habeenku wuxuu fadli iyo qiimo dheeraad ku yeelanaya hadalkii ilaahay baa habeenka soo degay oo sideedaba zamanku xawaadista dhexdiisa dhacaysa ayuu fadli iyo wanaag ku yeeshaa marka quraanka ilaahay baa la soo dejiyay tabaaraka wa tacaala laylatul qadrigaasi quraanka ilaahay soo dejiyay meel kale waa mid ilaahay uu ku tilmaamay inay tahay habeen barakaysan inna anzalnahu fi laylatin mubarakah habeen khayrkiisa la badiyay ayaan soo dejinay baa Ilaahay tabaaraka wa tacaala habeenkaasi inuu ku jiro ramadaanka ku jirana quraanka sheegay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran ramadaan baa ilaahay soo dejiyay ramadaan hadana laylatul qadri oo kasimid ah ayuu ilaahay quraanka soo dejiyay tabaaraka wa tacaala soo dejintuna waa qaabkaas bal bisha ramadaan sida xadiis uu Ahmed ay wariyeen Sheekh Albani leeyahay xasan sidoo tilmaamaya bisha ramadaan kutubtii ilaahay soo dejiyay inteedii muhiimka ahayd bar ramadaan bay soo degtay waxa sheegay xadiiska Waathilat ibn Asqa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam unzilat suhufu Ibrahim alayhi salam fi awwal laylatin min ramadaan yani habeenka ramadaan ugu horeeya ayaa suhuftii nabi Ibrahim la soo dejiyay wa unzilat at-tawratu li 6 madina min ramadaan lix markay tagtay ramadaanna waxa soo degtay oo ilaahay soo dejiyay tawreed injiilna waxa la soo dejiyay 23 ramadaan markay tagtay quraankana waxa loo soo dejiyay li 24 khalat min ramadaan markay tagtay 24 ayaa quraankuna soo degay saamacneedu waxa weeye bisha ramadaan gudaheeda ayaa kutubtii muhiimka ahayd ilaahay soo dejiyay tabaaraka wa tacaala marka quraanka ramadaan buu soo tagay laylatul qadrina waa soo degay laylatul qadri marka qiimaheeda iyo fadligeeda marka la sheego wuxuu rabbi inna anzalnahu fi laylatil qadri wa laylatut taqdir waa laga wada waa la dhihi karaayo Allah tabaaraka wa tacaala fiha yufraqu kullu amrin hakim wa kameel kale ku yiri oo habeenkaasi yani maqaadiirta ilaahay iyo qadihiisa iyo qadarkiisa ayaa la kala sarsaara la kala dhigdhiga marka laylad habeen wax la kala xukumayo inay tahay waa macnaha inuu waa suurtagal qadriga waxa kale oo leeyahay bimaana sharafka marka habeen sharaf leh oo qiimo leh way wama adraka maxaa ku ogeysay ma laylatul qadri maxay tahay su'aasha waxa uu iimaanaysaa bimaana tafkhim wala weyneynaya shayga marka la doonayo in lagu baraarujiyo weynidiisuna aad ay qiimo u leedahay su'aal laga dhigaa maxaad ka ogtahay maxaad kala socotaa yani waa lagu sheegay ma ogid hada lagu sheegay laylatul qadri khayrun wa mid ka khayr badan min 1000 shahrin kun bilood bay ka khayr badan tahay waxa laga wadaa habeenka amalka la sameeyo saalixa wuxuu ka fadli badan yahay ka khayr badan yahay kun bilood oo aan laylatul qadri ku jirin amal la sameeyo مثلا salaada tukato iyadii oo kale hadaa tukato macnaheedu waxa weeye kun bilood iyo habeenka salaada aad tukato iyada ka fadli badan marka taacada habeenka la sameeyo ayaa ka fadli badan habeenna kale oo kun bilood ah oo aan ayna iyadu ku jirin macnaha saas laga wada fadligaasi lagu sheegay oo ilaahay uu siiyay tabaaraka wa tacaala وdeeq ilaahay ugu deeqay ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam laana kun bilood markii sanad loo bedelo waxay u dhigantaa 83 sano iyo waliba ziyaada ay u dhigantaa marka 83 sano in cimrigaaga sanad walba uu ku siyaado hadaad habeenka ka faa'iideysato ilaahay ku waafajiyo cimrigaaga waxa ku siyaayay sanad walba 83 sano oo wada amal saalix ah waa deeq ilaahay tabaaraka wa tacaala habeenkaasi maadaama marka khayrkiisa iyo wanaagiisu badan yahay alla wanaagiisa wuxuu sheegay oo kamida malaa'iktu maadaama barakaadka iyo khayrka meelaha wanaagu dagay iyadoo ay jecesho timaado malaa'ikta ilaahay baa soo degta waay tanazzalu waxa soo degta al malaa'ikatu war ruuhu gaar ahaan malakul jibriil wa takhsiis ba'da ta'miim waay hadii laga dhigo ar-ruuh malakul jibriil nooc kale oo malaa'ikta kamidana waa lagu fasiraa fiiha habeenka dhexdiisa soo degayaan bi idni rabbihim rabbigood idankiisay ku soo degayaan laana malaa'iktu iskama dhaqaaqdo wama natanazzalu illa bi amri rabbika waxay ku soo degaan amar alle iyo idankiisay sidoo malaa'iktu ku yimaadaan sida bini aadamka kale amar laan iska tilaabsada ma iska tag min kulli amrin min ajli kulli amrin
arrin kasta dartii bay ku soo degayaan la soo degayaan oo khayra oo wanaaga waxyaalaha ilaahay qadaray ee wanaaga ama yani wax weeyaan waxay la soo degayaan wax kasto ilaahay xukumay tabaaraka wa tacaala sanadkaas ilaa sanadka dambe laga gaadhay oo fiiha yufraqu kullu amrin hakiim oo kale la mid noqonaysa salaamun nabadgeliyo way hiya iyadu habeenkaasi yani wax weey mahaaligta iyo gaar ahaan waxyaalaha aakhira bini aadamka dhibaatada u geystay nabad ka tahay hatta matla'i al-fajr ila fajrka dhalashadiisa laga gaadho habeenkaasi marka waa habeenku nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxi khayrkeeda laga qadiyay khayr oo dhan baa laga qadiyay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri 10ka dambe ka raadiya bisha ramadaan 10keeda dambe waliba habeenadeeda isdheer oo tirada isdheer ah 22ka 23ka 25ka 27ka 29 waliba waxay u sii rajo badan tahay yani 27 laakiin sida culimo badan rajaxayaan way guurguurtaa oo waxa dhici karaysa inay sanadna 23ka gasho sanad 22ka gasho sanad 25ka gasho sanadka xiga ay gasho midalan 29ka ama 27ka waxa uu adigu heli karaya ruux 10ka oo dhan wada istaagay oo dadaalay shaki malakaasi uu haleelaya hadii laakiin aad muxuu ahaay aad habeenada qaar kood ay ku seegseegaan waxa dhici karta inay dhexda ka baxdo oo ay ku seegtaa dhici karaysa sidaas way macnaha hadda waxaynu soo beegan 10kii dambaynu hadda bilaabayna inagu soo yani wax fooda inagu soo haysa marka waa in dadaalkeeda si looga faa'iideysto wax yar ma aha wax sahlan ma aha ilaahay inuu ku waafajiyo tabaaraka wa tacaala intaasaynu kaga soo baxaynaa suuratul qadri iyo qiimaha ay ku tilmaantay habeenkaas oo ay kamid tahay in habeenkaasi ilaahay uu kala xukumayo sanadka waxa soo socdo maqaadiir dhacaysa yaa la soo dejinaya yani lawxul mahfuudka laga keenaya hoos baa la keenaya malaa'ikta suxufteeda ayaa la keenaya waxay yani wax weeye quraankii baa la soo dejiyay habeenkaas waa fadiilo ay la dheer tahay habeenada kale ama zamanka intiisa kale suuratul bayyina way suurada inoogu xigta ayaduna wax weeye waa suura madaniya say culimadu u badan yihiin waxay leeyihiin waxay soo degtay marxaladii dambe ee nabigu Madiina yimi sallallahu alayhi wasallam waxa sugan oo Bukhari iyo Muslim ay soo saareen in nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam uu ku yiri Ubay ibn Ka'b wuxuu ahaa saxaabi jaliil ah ragii quraanka xambaaray oo takhasuska quraanka ku lahaa uu kamid yahay Ubay ibn Ka'b nabigu wuxuu ku yiri alla wuxuu i amray inaan kugu dul akhriyo suuradan lam yakun alladheena kafaruu min ahli alkitab markaasuu Ubay wuxuu yiri oo rasuulka Ilaahay oo ilaahay ma magacaygu sheegay miyuu i magacaabay samani miyuu i magacaabay haabuu markaasuu ooyay yani farax buu la ooyay ilaahay inuu i magacaabo oo hadana nabiga la faro la yiraahdo Ubay korkiisa ku akhri suuratul bayyina waa farxad weyn marka farxad buu la ooyay طيب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن ميسنهان الذين كوا كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كا والمشركين يكوي سنم يدع عبودية مينا أهان منفكين كوا كفكنيا وفاروق يوكتغي حمانتي قال لماذا حتى تأتيهم إلى أوغت مادي البينة حجدي عديد رسول إلى أوغي مادي ومن الله حق لك هذا ويطلو رسول كاسو يطلو أخرين صحفا وراقو مطهرة أو لداهريي باطل كي حمان تلقى داهريي فيها وحا أهاتي صحفتا دحدة أو وراقها دحدة وحا أهاتي كتب أي مكتوبات وحيابا لقري أو قيمة توسن عدالة إيا حق صليسا أو توسن بأهاتي أيضا وحي كورميسا آيات كاسي waxay tilmaamayaan ahlul kitaabka iyo mushrikiintu ahlul kitaabka waxa la yiraahdaa waa dadkii la siiyay kutubta inaga horeysay oo yahuuda oo tawreed la siiyay iyo nasaarada ama kristanka oo injiil la siiyay labada qolo ayaa ahlul kitaabka inta badan loo isticmaalaa marka ahlul kitaabka oo qolyaha ah iyo mushrikiinta oo laga wado cabadatul awthan wan niiraan kuwa sanamiyada caabudi jiray ama dabka caabudi jiray mushrikiinta wixii alla wixii ka soo haray caabudo dhan baa la yiraahdaa mushrik la yiraahdaa
حتى أهل الكتاب كوا مشركين أهل الكتاب سيد القرآن كميلك لو كنت المشركين توي قليان لكن واحد قوني الله صار وحيليهن أصل كتاب توضو شرك ما هين أصل ككتب تلو سودتشي هي الدين توضو أصل وحوها هي توحيد كأصلها لكن دب شرك وكيم وين لحدا وين انحرافين طيب هذا من كان يهودي كريستيان كإسكودر أهل الكتاب عربتي يوحي لها المال يا فارسيينتي وحي دبك عابود الشري أم أصنامتي أوثان تعابود الشري مشركين كل قد مركل يسكودر مينا أهانين منفكين كوا كفكنية كوا فكنيو كتجيو كزول يمين أهانين حين كزولين وحين كزولين وحي هيستين قال لماذا يا كفري يا شركي يعني أي وحنا كتيرين عابدان وحاس كود دينا يا ميسن أهانين حتى تأتيهم البينة إلى حجة عديد أوتمت بمعنى إن أد حمانتك تكتو وإن حجة عد أدهش فلسفة يا عقلي يا دلال كوضة كجمين التجن لكن حجة عديد إلى أي أوتمادو وحودي بهستين وحالة المامية حجة عديد بهذنا الصفة سيروح على الحجة عد وبدل يعني والرسول حق الله كيم يعني إلا نسقى حجة على يمد وحق الله ككيني حجوين كعد يدلائشة شرح يسي توحيدك شركك يا توحيدك كالعدين يسي وناجي حمانتك العدين يسي باطلك حقك العدين يسي إلى الرسول كاسي يمد ما ين حمانته ذي كتجن طيب رسول كاسي محوسم كسميني رسولكو مقص بينين لكن وحو أخرينيي وراقو للداهريي وراقها للداهريي وأكوين نكسو مرن سورة عبسة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة وقرآنك وكوي على الصحف ملائكة وراقها ملائكة أهيان للداهريي زيادة النسقان أن كظاهر كأه حمان ورنا كظاهر كأه وراقا نوعاسو أخرينيا وراقا للداهريي وأخرينيا باطل لقى الداهريي وراقها محاكو يالا وحاكو يالا وحيالا لقري أو توصن وقرآن كوي هذا الكي الله كقرآن تبارك وتعالى وحوها هاي أو حقها ليس إي عدالة وراقها سو أخرينيا dadku ku dul akhrinaya inuu dadka kitaabka Ilaahay iyo muxuu ahay waxyiga ku dul akhriyo mas'uuliyadiisu intaasay ahayd markuu akhriyo kadibna dadku midkii Ilaahay ugu talagalayna inuu ku hanuuno kii aan loogu talagalin inuu san marka hanuunka qaadanin way macna waana sida ay ahlul kitaabka laftoodu noqon doonaan marka ilaa rasuulkaasi iyo xaqaasi iyo waxyigaasi aayadaha cadcad u yimaadeen waxoodii meena ka tagin way لم يكن من أهل الذين كوا كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب ككمذا طيب أهل الكتاب بيانية تتكلمت والمشركين يا مشركين كوي محوها عبودي جري وحن الله أهين صنم يدا يضبك عبودي كل قد من أهل المنفكين كوا كفكان يا ميسن أهل كفرك يا حمانتا كوا كفكان يا ميسن نقولين حتى تأتيهم إلى أتمت البينة حجدي عديد إلى وجا إيمانيس طيب حجدي عديد مركي أتمت maxay sameeyeen marka qaarna way rumeeyeen qaarna way diideen iyadoo lafteeda inay wada qaateen lagama fahmay rasuul ilaa uu yimid oo min Allah xagga alla ka yimid kaasoo yatlu akhrinayo suhufan waraaqo mutahharatan oo la daahiriyay oo laga daahiriyay baatilka iyo xumaanta laga daahiriyay fiiha waraaqaha dhaxooda waxa ahaaday kutubun qoraallo qayimatun oo toosan yani waa waxyigi alla way qoraalka waraaqaha ku qoran waa waxyigi alla oo toosan وانقلع لهين طيب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة مركي حجدي عديد أتمد ما إسراعين وما وضقاتين سو شيقني كهر إني سنكتغين طيب حجدي با أتمد حيث من مركي وما تفرق ميسن كالتغين ميسن كالبحن الذين أوتوا لسي الكتاب كتاب كالسي إلا من بعد ما جاءتهم مركي أتمد كدب مويه البينة حجدي عديد markii xujadii cadeed u timid oo waxyigu u yimid oo rasuulkii u yimid markaas ay iskhilaafeenba markaas ay kala tageen baynama la rabay waxyiga iyo cadeynta iyo xujooyinka u yimid inay ku hanuunaan oo israacaan oo xagga khayrka ay isu raacaan mayna yeeline markaas ay si hor la isu khilaafeen
way iskhilaafeen iskhilaafkoodu muxuu ahaa marka iskhilaafkoodu waxa weeye ama waxa laga dhigayaa qaarna waxyigii iyo khayrkii yimid bay raaceen qaarna gaalnimadii bay ku adkaysteen sidaasay ku kala tageen oo isku khilaafeen طيب ama ma ahe waxa la leeyahay yani wax weeye tafarruqani kuwii gaalada ahabu ku dhacay wama tafarraqa bayna iskhilaafin oo ma kala bixin oo ma kala tagin alladina kuwii uutuu la siiyay alkitaaba kitaabka la siiyay waa kuwii kutubta hore loo siiyay oo yahuudiya nasaara illa min ba'di ma ja'atuhum markay u timooyay albayinatu hujjadi cadeed meel badan baa quraanku inoo sheegay in iskhilaafkoodii kala tagoodu uu yahay markii cilmigu u yimid sababta keentayna ay tahay baqiyan baynahum yani gardarro iyo xasad iyo muxuu ahaay qooq iyo kibir ba markay xujadu cadaatay kadib ku xambaaray inay muxuu ahaay iskhilaafaan oo kala tagaan wayla waxay ahayd xaqu haduu cadaado bayinadu timid in la wada raaco marka lagu midoobay ahayd wama umiru yani wax weeyaan mayna kala tagin ilaa ay xujadi uga timid wama umiru lama amrin ama wal hal ma umiru way kala tageen way iskhilaafeen wama umiru iyagoon la amrin illa liya'budu inay caabudaan mooyee الله ألا إني عابدان ما يحكي لما أمر مخلصين أيجو أصافي لي له ألا الدين عبادته إني الله عابدان ولي يجو أكوني يليو يعني أن عيد كلام حقود درين حنفاء شركي كله حنا يكتجي توحيد كآدي ويقيموا إني توسيان ما يحكي لما أمر الصلاة صلاة ويؤتوا إني بحيان ما يحكي لما أمر الزكاة إني سيان وذلك كا وعبادة الله هي الصلاة هي حنيف نمدا هي الزكاة الله بحية ذلك أنت صلى سكودري دين القيمة دين الملة القيمة دينتي توصنيد وي دينتي توصنيد دين القيمة ودينتي توصنيد مركي كلا تجيان وإسخلافيان oo ay kala jajabayaan bayinadii markay u timid kadib waxa loo keenay ma ahayn wax lagu kala tago wax la isku khilaafana ma ahayn mabda cad oo kii loo abuuray ah baaba loo keenay muxuu ahaa ilaahay kaliya caabuda cibaadadana isaga u gooniyeela cibaadada ilaahay kaliya u gooniyeela mabda'aasina waa mabdii loona abuuray كتبت إلهي سودة جينا كل قد إلى تمد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله رسول كستول صادر وح الله صلى الله صادري إنه أضمد بروح حق إلهي كلجي إنه كحره كلجي إنه أضمد عبودان حق إلهي إنه يقتان وحي الأمر أنت صحيح إلهي عابدا الشرك كان كتجو التوحيد كقاتا حنفاء صلاة توسية وعبادات كبدنك يحبونه صميان عبادات ugu qiimo badan way ugu weyn way salaadu xoolihiina ka bixiya xaq lagu leeyahay zakada ka bixiya inta sala amri ma inta ahayd markay inay isku khilaafaan bay ahayd mise inay isku raacaan bay ahayd inta way waa asaasiyad waa diintii toosnayd way diintii toosnayd markay u timid oo loo cadeeyay meeshay ahayd inay israacaan bay ku kala tageenba way si kala jajabeeno way burbureen waa ka nabigeenu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam in ay isu khilaafeen yahuuduna yani wax way 7 qaybood bay u kala burbureen nasaarana 72 qaybood bay u kala burbureen way si kala jajabeen oo kooxay noqdeen islaacnaday oo isgaalaysiinay kristanka dawidinka arkay yani wax weeyaan madaahibtoodan kathoolika iyo protestant iyo muxuu ahay orthodoxiska iyo firaqdoodana midba kale agtooda gaalay ka tahay واسقاليسينayaan marka saas u kala jeeyo laakiin diintii u timid oo ama nabi ciise u keenay ama nabi muuse u keenay waxay ahayd alla caabuda cibaadadana u gooniyeela salaadana toosiya sakadana bixiya shirkigana ka tago tawxiidka qaata intaas ay kutubtu la timid wama umiru wal hal bay kala tageen ma umiru an la amrin illa liya'budu inay caabudaan mooyee allah alla inay caabudaan mooyee wax kale aan la amrin mukhlisiina ayagoo u gooniyeelaya lahu alla ad-diin cibaadada u gooniyeelaya حنفاء أيجو حمانتي الشركة كله حنايو توحيد كي وناجا ولا حنايا ويقيموا إن توسيان ما يحكي لما أمر الصلاة إن توسيان ما يحكي لما أمر ويؤتوا إن السيان
الزكاة الزكاة إني دتك إسكال إني محمد دتك مضن أي سيان وحكى لما أمر وذلك كاسون الدين القيمة ودينتي تصنيدوي مبادئ ده يجعل أمري وبيدينتين ولا تمي طيب لأنه واملها أي يعني أديانة السماوي كم إذا يصنتها هو طيب وذلك الدين القيمة وحي أدري شدين الإمام الزهري يا إمام الشافعي يا أئمة كله وحي أدري شدين أعماشو إني إيمانك كم تهي أو إيمانك كل حجرته لأنه وحوي عبادتي إيو صلاتي إيو سكدي وأعمال أيا وحليلي وذلك الدين القيمة ودينتي بالي مركا وحويان دينتو إيمانك إيو أعمال السمايو يوحي سوو جرتا يعني قلبك وحو الرميو يحبنه وحي السمايان بإيمان بالي يعربك وحو كل واقب وليبا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كوا مركا أهل الكتاب كأي مشركين تاسي انت حقي أيمدو لو عدي بالمري وكوك عن صيري وحمانتود إسكوت أبالكود محوية إن الذين كوا كفروا كفريي وقالوا من أهل الكتاب كاه خريطة كتاب كالوسية والمشركين كوا صنم يدعى عبداء في نار جهنم النار تيدا دحذي هذا خالدين حالي كوا ريان فيها دحذي ذا أولئك كواسي هم إيو شر البرية انت إلهي أبو ريبي أقو شربدين يعني إلهي تبارك وتعالى أهل الكتاب كي مشركين تي مر هدي توحيد كي مبدي إلهي أمري يحقي إلهي أي ديدين أبالكودو مركا إن جهنم النار تيدا لقليه واه وليبا ويكوا ريان لأن ما دام قال لما كود انتين روح قال لما كود انتي وإنو نار تكوا رواه يعني حرام بيكتهي روح قال لما كود انتي إنو جنة قلن طيب نار تكوا رياه وسيده قرآنكم يلا بدن كنت المامي جنة وحى قلا ضد إيمان كلنت حتى هدي الروح مؤمنة لكن الذنوب وين وكلا كلنتون شرك أهين رجوا ليه أخيرا من جنة قدام بينه لكن الروح قال لما كلنتي رجمله خالدين فيها وكواري أولئك هم شر البرية وحلو قدري أنت إلهي وأبورتين مخلوقاتك يقول شربدين لأن مخلوقاتك أنت وذكله حتى جماداتك إلهي بعابدان ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر إلى آخره مخلوقات كان إلهي بيودع عسين الصمد هذي تاي دولك هدوية بورها جيدها بدها وحنا ذا كيسان إلهي بيقول تصبيح سنة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يعني كل قد إلهي بيودع عسين وحأون قرم مري إلهي طاعدي سيئين لقى أمر قاته وحا قرم مريئون انتن كوحدن قالدا سأصدرادد يعني وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إلهي إن بدنوا بني آدم ككمد إلهي بأسجوده يعني مخلوقا كلي رعسيهن وإلهي أطيعيا إن بني آدم كي كمد أيا مركا قرم مرتي كواسي مركا وحلم ذا أو كشر بدن متشرو انت إلهي أبورتبي أوشر بدين إن الذين كوا مركا لقصوا الشيكية وحال قلي مركا ضدكي وناكسناي مؤمنين تا وكوي مركا حجة يبينضوا أتمت راعي وأمرك إلهي قاتي وتوحيدك هي الصلاة هي السكدة هي دين تتوصل راعي كواسي أوي يجا وكوا إن الذين كوا آمنوا الرمي حق حجة يبينض الرمي وعملوا سمي الصالحات عمليال كون وناكسن وصلاة دي الزكاة وجوه الريان أولئك كواس هم يجو خير البرية انتو إلهي أبو ريبي وجو خير بدين وآيات دي أدل الشدان علماء قاركود مؤمنين تو إني كفضل بديه الملائكة قاربا ساء أدل الشدان والله أعلم طيب انتو إلهي أبو ريبي وجو خير بديهن لأن وحوه وأضوم إلهي والربي قد أطيعي وكأمر قاتل الشرف بيمرك إليهن قيمة إليهن بمعنى أبا الكود محويه أساس أدونك هذه الشوغان وتسكيسين وأمانيه قيمة إليهن إلهي أكتس تبارك وتعالى آخرنا جزاؤهم أبا الكود عند ربهم ربي قد أكتيس أي كليهن جنات عدن واردة أما النقاديق تشنوين كذواه يعني تشنوين أيها نمبر كو أستاميسن وارد يليه جنوين كاسو تجري أي صعود من تحتها هوسيد الأنهار وبياشي أي صعدان خالدين أيها كواريا
أما حالي كواريان فيها جنات كدحود أبدا ولقود كواريان رضي الله إلهي بار لك النقضي وسياده عنهم حقوده ورضوا يقول الرالي بين نقدين عنه ألا حقي سير رالي كالنقدين ووحو سيبي كوقنعين ذلك أرن كاسنا لمن عد بأسقنا ذي خشية بقي ربه ربي كبقي أبالك دتك مؤمنين تي إلى أكتي سيكوليهين عند ربهم بالي ميلسو كما عدك لأكتي سنما والله عزيز كأكتي سيكوليه وجنوينك نجاديك جنوين هدي الله تقول لقولنا قاعدوا عدي كشائن كبحين كدمنين كالسفرين جنات عدن باب الرهاب يجدن با وحلي هذا وابيرها النجاديك السندوين كالنجاديك اللي هذا طيب هوستو ذا وحى قلقلة وبياشي يعني وحو يجريها يجيدها يسندوين كهوستو ذا وحى صعدة وبيال إلى الدردرة أيا صعونية ومنظر كأوجو قروح بدن واحد سمعنا هذا بني آدم كمالها هذا الحيس كي يقروح ذي الله تجو ومالها أي جيدها يبيه أي سجلان مركمال هذا قروح بدن واحد وبياشا صعدة في سورة المحمد بإله كوفة فهيو ويعني وحي وبيال عاناء وكوا ملبأ وكوا بياء نسبدلين صافئة وكوا خمر صافئة وبيال إلى كالجدسان وبيال بالصعدة طيب الله تبارك وتعالى وحكى له ودبدغي way ku waarayaan waligood meelay ka tagayaan iyagoo yani jannaadka lagu magacaabay inay jannaadin nagaadi yihiin ba hadana waxa la dabadhigay way ku waarayaan waligood ka bixi maayaan ka dhiban maayaan ka safri maayaan yani waxa weey halkaas ay waligood ku jirayaan jannooyinka markay galaan wax jannooyinkiiba ka weyn baa la siinaya oo ilaahay rudihiisa ورضوان من الله أكبر ومذك أيدك الإله يكون مركو تشنوين كسر شيكي واحد حيال ورضوان من الله أكبر إلهي الرضيه سإنه الرالي كان نقضى كوين واحد تشناد حيال له صاصدرات بحديث النبي كريم صلى الله عليه وسلم أهل الجنة مركي تشناد قلام بقال له وحولي أهل الجنة ميدين سيادية مركز وحيل ربي محمد نو سيادين هداد نار نقبض بعد الجنة نجلس محمد نو لابن مركز قال له وحيل تبارك وتعالى رالي بان إذن كان نقضي ولقينا إذن عرون معي marka nicmada jannada markay galaan wax la siiyo wax ugu qaalisanba ilaahay ridihiisa waa iyo talabaad oo ah in ilaahay wajigiisa daawadaan waataynu ku soo marnay suuratul mutaffifin iyadan yaa iskala waa barwaaqadaasi sida u taalayaa leh dalika liman khashiya rabbahu xidi rabbigi ka baqday oo qalbigiisa ay baqdini gashay rabbigi uu la kulmi doona la xisaabtami doona kadibna xuquuqdii rabbigii gutay oo cabsidaasi ay ku xambaartay ruuxaasa iskale abaalka isaga jazaa'uhum abaalkoodu inda rabbihim rabbigood agtiisa ay ku leeyihiin jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisa aseendooyinka lagu nagaado waa tajri oo socoto jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha al-anhaar wa biyashi khaalidiina xalay ku waarayaan fiiha dhexda abadan weligood radiyallahu canhum ilaahi baa raalli ka noqday waraduu iyaguna raalli bay noqdeen canhu alla xaggiisa maxaa laga wadaa waxa la siiyay bay ku qanceen raali way marka wax ma tabayaan wax inuu ka maqay mar rumaysna yani way ku qanacsan dalika arrinkaasi liman cid buu u sugnaaday khashiya ka baqay rabbahu rabbigi ka baqay suuratu zalzala wa suurada ayaduna inoogu xigta iyaduna waa suura makiya oo waxay soo degtay marxaladii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu maka jiray intuusan hijrooni bay soo degtay baa la leeyahay waxay ka waramaysaa suuradani marka buunka suurka la afuufo suurka afuufista dambe ee lagu soo noolaanayo iyo isbedelka ku dhacaya dhulka iyo bini aadamkii sida loo abaal marinayo iyo meesha ku kala dambaynayo ayay wax ka tilmaamaysaa ida goortii zulzilad la gilgilo al-ardu dhulki zilzalaha gilgilideedii zilzalaha gilgilideeda ku haboon طيب oo wa akhrajad ay soo saarto al-ardu dhulki athqalaha culeysyadeeda ay soo saarto wixii culeysay gudaheeda ku jiray ay soo saarto oo waqala uu yiraahdo al-insanu insaanki bini aadamki ma laha maxaa u sugnaaday يعني ويبا دغنيد way xasiloonayde maxay leedahay waxay u dalneeday wax ka yeen yawma idin maalinkaas ay tuhadithu sheekayni dhulki
akhbaarahaa wararkeedii bay sheegi way sheekayn way warrami wararkeedii bay sheegi طيب بأن ربك صوت وحوي بأن ربك ربكابا أوحاء وحيودي لها إيدا تاس سببتيد بي ورميسا يومئذ مالين كامرك يصدر ويسوف ليان ويصوب حيان الناس ضدك ويصوب حيان طيب أشتاتا أيقو كوكلا تكتكسنة يقو كلا دودوان نوعياء أنا اسكمي دهين maxay u soo baxayaan oo u soo fulayaan liyuraw in la tuso daraadeed acmaalahum camaliyaalkooda in la tuso daraadeed bay u soo fulayaan way soo fulayaan oo soo baxayaan si loo tuso camaladoodii waxay sameeyeen iyo waxay shaqaysteen faman yacmal mithqaala daratin markii dhulka la gilgilo dabcan suurka marka la afuufo dhulku waa gilgilanaya waa la gilgilaya waa la ruuxaya marka la ruuxo ruuxitaanka iyo gilgilidu shay walba inta uu leeg yahay bay ruuxidiisa iyo gilgilashadiisu noqotaa marka zilzaalaha gilgilashadeeda ama gilgilideedu waa inta ay dhulku leeg yahay xajmigeedu intuu leeg yahay bay gilgiliduna u qalantaa waay shayga yarka hadii la ruuxo iyo shayga weyn hadii la ruuxo isku si uma ruuxmaan isku sina uma gilgishaan marka waxa weeye dhulka gilgilida loo tiiriyay waa mid iyada weynankeeda iyo xajmigeeda munaasib ku ah gilgilid aad u weyn way ruuxanaysaa marka waa la ruuxaya طيب waa fool oo kale waxbay soo saaraysaa macnaha markii ay la ruuxo kadib wax alla wixii culays ku jiray oo dhanba markay soo saaraysaa maxaa athqaalaha culaysadeeda ahaa wixii ku jiray bay soo saari waxay soo saaraysaa wixii la geliyay bini aadamkii lagu aasay wixii iyada aan ka mid ahayn oo iyada ka duwan ajnabi ka ah oo gudaheeda la geliyay oo dhan bay soo tufaysaa banaanka u soo saaraysaa macna watakhallata soo maray way macna way ismadhinaysaa oo iskhaali yeelaysaa banaanka u soo saaraysaa ibni aadamkii markeeda wuxuu yaqaanay dhul xasiloon oo degan oo uu ku socdo oo ku tamashileeyo oo ku shaqaysto oo dhaqdhaqaaqin buu yaqaanay waxan markuu arkay gilgilanaysa ruuxanaysa waa isweydiiyay marka maxay leedahay war maxaa ku dhacay ma laha maxay leedahay war maxaa soo kordhay waa yaabay maalinka isaga ah dhulku wuxuu la ruuxanayaa wuu waramayaa war buu sii deynay akhbaar bay haysaa riboodyo fara badan bay haysaa akhbaarteedii bay marka sheegaysaa طيب حديث باجرا أحمد الترمذي أي صار من حديث أبي هريرة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أخبار تيذا متقانا ورك هذا مياد قرن إنسان وإلى هذين مايا والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ورك هذا وحوي أدون كستا أي ما أنت قيامه حيكون مرخاتي فوري دون تاويحي كرك هذا يكون سمعيه تاسع أخبار تلقوضة حديث كاسي من حيث الصناعة الحديثية حق سندها وضعيف مصقنا لكن معنى أهان dhulku inuu wuxuu korkiisa lagu sameeyay sheegi doono oo dadka ku marxaati furi doono waa macnaha laga wado warkeedii bay marka sheegi doontaa طيب بأن ربك أوحى لها وحي جواب أطهي سؤاشي بني آدم كو أهيد ما لها محا كدعي محي ليده محي يقول قلنيسا ومحي ورميسا وحي ورميسا أو يقول قلنيسا ربي قيد به أمري أوحى لها بمعنى وإدمي أما وأمري لأن وحيك وحل إلى هذا سقر سودية إن وحلقوه شغال إلى هذا وحيك واساس وحديث أما سقر سودية وحلقوه شغال مركا أمر ربي أو قرسودية وأنه مركا أن أمو قندتك يا سوغاري دولكن أمر بي قبتها مركا أمر ربي أي قبتها ساسي مركا كو الرميسا ويوركو كشيغيسا بأن ربك أوحى لها مركي انتا سيد عضو dadku marka way soo fulayaan yasturu an-naasu xagee ka soo fulayaan qaar waxay leeyeen culimadu qubuurtii bay ka soo fulayaan qubuurtii ka soo baxayaan qaarna waxay leeyeen ma aha mowqifka qiyaamada ilaan bankii qiyaamada la taagnaa bankii qiyaamada marka la taagan yahay la isma xisaabinin hawsha wali waa laaban tahay markay banka qiyaamada ka soo dareeraan oo ka soo fulaan
markaasaa acmaashoodii la hordhigiyo lala xisaabtamayaa marka xaggey ka soo fulayaan waa qubuurtii waa ra'yi kana waxay maahay mowqifkii qiyaamada la taagnaa bay ka soo fulayaan yasduru nnaasu ashtaatan ayagoo kala duwanaanta iyo kala tagsanaantaasi waxa weeye qaarna waxay soo baxayaan ayaga oo wejiyo madow oo aada u murugsan oo rafaadsan qaarna waxay soo fulayaan ayagoo wejigoodu dhalaalayo aadna u faraxsan marka waa la kala tagsan yahay ayib waxay u soo baxayaan liyuraw acmaalahum acmaashoodii in la tuso acmaashii tusideeduna waxa weeyaan diiwaankii laga soo diyaariyey iyo qoraalkii laga soo diyaariyey baa la hordhigayaa markaasaa waxaa la yidhaha iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba yani akhrisaa la leeyahay diiwaankaaga adaa maanta xisaabiye isugu filan wax alla wixii ay samaysay dhan baa marka ku yaal maa lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wax yar iyo wax weyn doona kama tegin meeshay ku qoran yihin waa la tusaya marka waa lagu soo hordhigaya sidaas weeyaan ayib faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah acmaashii laystusayey ayaa marka tafaasiil laga bixiyo wax yar iyo wax weyn wax ka maqan ma jiro faman yacmal ruuxii sameeya mithqaala daratin dhurcaso wax qadarkeeda ah ama wax culayskeedoo kale leh khayran oo khayr ah yarahu wuu arkayaa waman yacmal ruuxii sameeya mithqaala daratin dhurcaso wax qadarkeeda la eg sharan oo shar ana yarahu wuu arkayaa mithqaalka waxaa la yidhaahdaa waa qadarka ama culayska daradana waxaa la yidhahdaa laba macnaa lagu fasiraa in la yidhaahdo daradu waa quraanjada yar ee dhurcasada la yidhahdo aadka u yar iyo in la yidhaahdo darada waxaa la yidhaahdaa waa siigada ama habaaska inta badan ishu ayna qabanayninoo guriga dariishadiisa markay qoraxdu ka soo gasho yani wax weeyaan waxyaalo ishaadu ayna qabanaynin laakiin markaasoo kale habaaska duulduulahaya ee meeshaasi aad arkayso waxaa yarkaa si caadina ishu ayna u qaban karaynin kaasaa waxaa la yidhahdaa dara adiga wax weeye miihaal waxay u tahay wax jira waxa ugu yar wax jira ama jiri kara waxa ugu yar maalinkaasi miisaanku wuu miisaamaya baynamaa awsan hadda adduunka mawaasiintiisu hadda ma qaban karto wax yar oo intaa la eg oo kale miisaanka iyo kafadiisa waxba kama bedelayso laakiin maalinta aakharo waxa ugu yar ishu xataa ayna qabanaynin oo khayr ah miisaanku waa qabanaya shar hadduu yahayna miisaanku waa qabanaya labadaba waad arkaysaa macnaha ayib wax yar iyo wax weyn nabigeenu sal alay wasalam aayaddan wuxuu ku tilmaamay inay tahay hiya aljaamicatu alfaadha aayad wax walba kulmisay oo haddana gooni ah wax la mida qur-aanku uba yaryahayba siday wax u kulmisay ayuu nebigu ku tilmaamay sal alay slam waxayna ahayd markuu fardaha ka warramay nebigu sal lay slm ayaa waxa bal dameeraha nooga warran dameeraha iyaga ka warran xaalkooda markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam wax dameeraha kuu saabsan iyo xuquuqda laga bixinayo layguma soo dejinin ilaa aayaddan mooyaane alfaadha aljaamica faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah oo macnuhu yahay dameeraha ninkii dhanka khayrka u isticmaalana khayr buu ka heli ninkii dhanka xumaanta u isticmaalana shar iyo xumaan buu ka helaya way macnaha saasuu nebigu sal lay slam markaa u fasiray faman yacmal ruuxii sameeye mithqaala daratin yani waxaan ishu qabanin qadarkii ama wax la eg khayran oo khayr ah yarahu wuu arkaya waman yacmal ruuxii sameeye mithqaala daratin waxaan ishu qaban karin ama wax jira waxa ugu yar qadarkiisa ama culayskiisoo kale wax le sharan oo shara yar wuu arkaya sidaas daraaddeed isjir waa yani dembina ha u gelin wuu yaryahay khayrna ha uga tegin wuu yaryahay wixii khayrana ha ka tegin oo wuu yaryahay intaad yastood xaqirta ha uga tegin maxaa yeele wax yar baa laga yaabaa maalinta qiyaamada miisaankaaga xasanaadka inuu cusleeyo ood naar kaga badbaadood janno ku gasho waa kii nabigeenu sal lay waslam lahaa ittaquu nnaara walow bishiqi tamra naar iska jira xataa timir jeexeedna ha noqdee timir jeexeed wax yar baad naar kaga badbaaday ood kaga fakan kartaa marka khayrka ha yaraysanin laa taxqiranna min almacruufi shay-an xataa inaad wejigaaga furto oo dadka weji furan kula kulanto xataa ninbaa yani jidka wax yaroo uu ka leexiyey wax yaroo muslimiinta dhibayo jidka uu ka leexiyey buu jannada ugu tamashirinaya ugu yani kolba dhinac u marahaya nabigu sheegay sal alay wasalam marka khayr ha yaraysanin sharna ha yaraysanin wax yar
ayaad naarta ku geli karaysaa way macna maadaama waxyaalaha yaryarkaaba miisaanku qabanayo la xisaabi doono yani waxa weeye xumaantana teeda yar iska ilaali khayrkana kiisa yar ha xaqirina samee suuratul caadiyaad way suurada kale inoogu xigta darsigeena ugu dambaysa maanta iyadana waa suura makiya waxay ku bilaabanaysaa dhaar Allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala wal caadiyaati baan ku dhaartay fardihii ordayay ضبحا صوحا أما هراج أما حورين طيب فالموريات فرده هورين يبان كدارتي قدحا مذك فالمغيرات فرده وير يبان كدارتي صبحا أرورتي وفأثرنا كعني به أي فيه الصبح ذا لحظة نقعا حباس أما بص أما بورد oo fawasadna dhaxgalay bihi subaxda dhaxdeeda jam'an koox cadow ah intaasan ku dhaartay innal insana insaanki li rabbigi lakunudun wa kudiida badan wa ku abaal daran ama jisaarid badan ama diida badan wa innahu isagu insaanki ala dhalika arrinka korkiisa kanuudnimada iyo inuu rabbigi ni'amkiisa diido arrinka korkiisa la shahiidun isagaaba marxaati ka insaanka laftiisa waa marxaati ka wa innahu insagu oo insaankii li hubbil khayri xoolaha jacaylkooda dartood la shadiidun waa mid adag mid ku adag way xoolaha dartood oo muxuu ahay ku gacan adag waa caadiyaadka culimada qaar waxay yiraahdeen waa geela xajka marka loo socdo geelaasay ku fasiraan laakiin tafsiirka ka fiican loo badan yahay waxa weeyaan caadiyaadku inay yihiin fardaha dagaalamaya oo jihaadka ilaahay dariiqa ilaahay ku dagaalamaya waxa yeelay amal ilaahay jecel yahay bay hayaan saas daraadeed qiimaha ay leeyihiin darteed buu ilaahay ugu dhaaranaya marka fardaha ordaya dabhan yadbahna dabhan dabxiga waxa la yiraahdaa farasku markuu ordayo yani waxa weeyaan sawaxan uu hiraaga waxay ku fasiraan culimadu waa sawtu anfasiha ida adawna markay ordayaan neeftuurka ay neeftuur hayaan iyo neefsiga ay neefsanayaan ayaa dabxiga la yiraahdaa macna saas waay yani saasay ku fasireen macna marka sawtka ay bixinayaan hiraaga ka baxaya markay ordayaan ayaa dabxiga la yiraahdaa tayib marka ayagoo sida u sawdaynaya oo codka bixinaya oo hiraagaya fardaha ordayaan ku dhaartay baa Ilaahay tabaaraka wa tacaala falmuriyati baan ku dhaartay qadhan waxa laga wadaa markay farduhu ordayaan qoobkooda shaygii adag ay ku dhuftaan dhagax iyo wixii lamida dab baa ka kacaya yani xoog ay ugu dhufanayaan marka yani sidii madag la dhaliyo kale ka dhiganta madaga wax la yiraahdaa marka baadiyaha oo kale geedo waxa jira dabka laga dhaliyo marka laba qori baa la soo qaaday waa la isku xoqayaa marka la isku xoqayaa ihtikaaga iyo isdigaaga ka dhaxeeyay qoryaha la isku xoqayo dabku ka dhalanaya marka taasoo kale waa falmuriyati fardihi hurinaya baan ku dhaartay qadhan madagta hurinay ama yani qadhan garaacis ay lugahooda ku garaacayaan dhulka dhagaxa iyo wixii lamid ay ku garaacayaan isku dhaca ay isku dhacayaan baa la yiraahdaa qadxiga la yiraahdaa tayib isxoqida isxoqayaan ayaa la yiraahdaa tayib falmughirati baan ku dhaartay fardihi weeraraya subaxnimada waa waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo inta badan dagaalka weerarka u qaadi jiray oo habeenkii oo kale haduu meel ku soo hagaago uu bariisin jiray wuxuu dhageysan jiray balin aadaan iyo wax ka dhaco meesha isaga hadii aadaan iyo wax yeero marka magaalada iyo tuulada iyo laba weerari jiray hadii marka aadaan laga waayo subaxdii uu ku gaacin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam falmughirati subhan فأثرنا كعنيي به weerarka ama orodkaas sababtiisa wala dhihi kara bil adwi orodkaas sababtiisa waxay ku kicinayaan naqcan bus iyo boor ama bihidu fihi bay noqono bimaana subhi way waqtiga dhexdiisa waxay kicinayaan naqcan wa farduhu markay iskalaan oo dagaalku bilowdo bus ba istaagto boor ba kacaya fawasatna dhexgalayay bihi waqtiga dhexdiisa ama bihi orodkaas sababtiisa ku dhexgalayay jam'an koox cadow guutooyin iyo ciidamo fadhiyay si kada dhexgalayaan oo dagaal ku qaadayaan
intaasaan ku dhaartay rabbi tabaaraka wa tacaala wa madaahirtii mashaahida dagaalka jihaadka iyo dagaalka sharciga ah intaasaan ku dhaartay innal insaana lirabbihi lakanuud kii insaan la dhihi jiray waa mid rabbigii ku jisaaro waay waa mid nicmadiid badan waay waa mid abaal darro badan waay allihii abuurtay u nimceeyey barwaaqada siiyey yani wax way maamulaya wax walba siiyey ma ogola daacadiisii ma ogola nicmooyinkuu siiyey uma ictiraafsana waa kanuud jaxuud waa mid nicmadiida badan waa inuu nicmadiid yahay oo ilaahay nicmadiisa uusan ka shuhriyinna isagaaba markhaati ka ah wa innahu isagu calaa daalika arrinkaa korkiisa la shahiidun isagaa markhaati ah see markhaati uga yahay bilisaani xaalihi waa markaad dhaqankiisa fiiriso isagaaba isku markhaati furayaba markuu nicamkii ilaahay siiyey uusan ilaahay ku aqoonsanaynin markuu nicamkii ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala xumaan u isticmaalayo markuu ilaahay nicmooyinkii siiyey uu yani ilaahaygii siiyeyba kula dagaalamayo iyo xaqiisii kula dagaalamayo yani way iska caddahay weye xaalkiisa iyo waxa ka muuqda ayaa markhaati ka ah inuu ilaahay nicmadiisii diiday oo ku jisaaray marka waxaa la yidhahdaa lisaanulxaal bini aadamka waxna wuxuu carabka ka sheego lisaanulxaal baa la dhahaa waxna wuxuu xaalkiisu ku tusayo oo isaga ka muuqda ayaa la yidhaahdaa lisaanulxaal baa la dhahaa marka xaaladiisay ka muuqataa sidaasuuna markhaati uga yahay oo isaga isku cadaynaya inuu yahay yani kanuud inuu yahay wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid xoolaha jacaylkoodana waa ku adag yahay bimacnaa adayga waxaa laga wadaa albakhiil almumsik waa bakhayl gacan adag xoolo markii la siiyana xuquuqdoodii ma guto sake ka bixin maayo ixsaan ka samayn maayo sadaqayn maayo saas way macnaha waa cishanaya wata ilaahay meel kale inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbii idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuuran sideedaba ibni aadamku sidiisaba waa hayste waa cishade wax bixinta iyo deeqsinimadu dabeecad asal uma ah ayib marka xoolaha jacaylkoodana waa ku adagya afalaa yaclamu miyuusan ogeyn idaa goortii bucira lasoo faago maa fi lqubuuri waxa qubuurta gudahooda ku jira marka lasoo faago lasoo cararogo oo waxusila lasoo muujiyo maa fi suduuri waxa laabaha ku qarsoon ee ku jirana lasoo muujiyo oo bannaanka la keeno ina rabbahum rabbigood bihim iyaga yowmaidin maalinka la khabiirun waa mid xoogaal u ah waxba kama qarsoona yani waxa weye qubuurta waxa ku jira lasoo faago waxaa laga wadaa shirkiibaa ku jira qubuurta shirkiisii marka dib laysugu soo celiyo qabrigii iyo godkii la geliyeyna laga soo saaro oo bannaanka la keeno kadibna wixii qalbigiisa ugu qarsoonaana isagana lasoo daahiriyo lasoo kulmiyo xusilada waxaa la yidhaahdaa inta lasoo uruuriyo oo yani lasoo daahiriyo in la kala saaro marka qalbigaaga maxaa ku jira mabaadidii baa ku jirta gaalnimadii iimaankii khayrkii sharkii wixii qalbiga kuugu qarsoonaana waa lasoo saari waa lasoo daahirina jidhkaagii dhulka ku baaba'ayna isagana waa laysu keenayo waa lasoo saaraya maalinkaa bannaankaa taagan tahay marka adigoo waxaad rumaysnayd wata jidhkaagiina dhammaystiran yahay caqiidadaadii iyo mabdii aad adduunka ku haysatayna ay kuu jirto ayaa lagu keenayaa wixii qalbigaaga ku jiray baa bannaanka la keenaya marka waxba kuu qarsoonaan maayaan maalinkaasi rabbigood xogogaal buu u yahay maxaa laga wadaa hadde xogogaalnimada waxaa ka dhalanaysa inuu xisaabinayo abaalkooda marinayo maalinkaas abaalkiisaa la marin doonaa bini aadamka adduunka allihiisa lagu kari laya kanuudka ah ee kadeedka ee madax adayga iyo kufriga laga kari layahay halkaasaa dambaysa waa afalaa yaclamu miyuusan ogeyn ibni aadamku ma'aalkiiyo meeshuu ku dambayn doona idaa goortii bucira la cararago ama yani wax weeyaan la faago maa fi lqubuuri qubriyada dhexooda waxaa ku jiro oo jirarkii iyo jirkii bini aadamkaee galaya marka lasoo saaro oo lasoo bannaanka lasoo dhigo oo waxusila yani la daahiriyo la muujiyo waxaa la yidhaahdaa xusilada waa aljamcu waalidhaar inta la kulmiyaa weliba lasoo muujinaya in la kala soco la kala saarana waa lagu fasiraa maa fi suduuri laabaha wuxuu ku jiray markii muxuu ahay lasoo muujiyo lasoo daahiriyo miyuunan ogeyn ina rabbahum rabbigood bihim iyaga yowmaidin maalinka la khabiirun mid xogogaalun inuu yahay oo waxba ka qarsoonayn ruux walbana wixiisii la marin doono hada wabillahi towfiiq
وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.